Assalaamu calaykum. Sanadan aan ku jirnay 2019, hay'adda qaramada midoobay ee United Nations waxay jirsatay 74 sano laga soo bilaabo markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunyada. Qaramada midoobay waxay u jirtaa inay kobciso xiriirka ka dhaxeeya wadamada xubnaha ka ah si loo gaaro ahdaafta caalamiga ah. Waxaa mustaxiil noqon lahaa haddii wadan walba uu keligii wax qabsan lahaa. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee uga shaqeysaa howlahan oo dhan hay'adda qaramada midoobay. Hay'adda qaramada midoobay waxay u kala baxdaa 6 qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad waa General Assembly, kulanka loo dhan yahay. Waxa uu ka kooban yahay 193 dal oo la aqoonsan yahay. Kulankan ayaa dhaca sanad walba bisha September, waxaana laga doodaa arrimaha amniga iyo diblomaasiyadda. Sanadan ciwaanka waxa uu ku aadanaa Indeed, my sincere belief that the General Assembly is vital in galvanizing multilateral efforts and actions for poverty eradication, quality education, climate action, and promoting inclusivity in all its forms to advance our global agenda for people-centered development, for common progress and prosperity. helitaanka dadaalo dhinacyo badan oo ku aadan ciribtirka saboolnimada, waxbarasho tayo leh, xal u helista cimilada, iyo in la xoojiyo wadajirka si sare loogu qaado ajendaha caalamiga ah. Golaha guud dhexdiisa, go'aamada difaaca iyo arrimaha maamulka sida xubinnimada cusub iyo miisaaniyadda waxay u baahan yihiin codad 3 meelood 2 meel ah, halka arrimaha kale ay u baahan yihiin inta uga badan codadka. Wadan walba iyadoo aan loo eegayn inta uu cabirkiisu yahay waxa uu helayaa hal cod. Si kastaba, waxaa jira 2 dawladood oo aan ahayn xubnaha dhabta ah oo kala ah Vatican iyo Falastiin. Labadan wadan waxaa loogu yeeraa dawladaha aan xubinnimadooda joogtada ahayn. Labadan dawladood golaha guud ee qaramada midoobay wax cod ah kuma lahan, laakiin waxay ka qayb qaadan karaan doodaha guddigan. Qaybta labaad ee qaramada midoobay waa Security Council. Golaha ammaanka waxaa loo aasaasay in laga hortago isku dhacyada ballaaran iyo in kor loo qaado nabadda iyada oo loo marayo diblomaasiyadda ama cunaqabataynta. Waxayna ka kooban tahay 5 xubno oo joogto ah, waana Russia, France, China, UK iyo Mareykanka, kuwaas oo kale ah awoodihii ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunyada. Xubnaha joogtada waxay leeyihiin veto power, isticmaalkoodana wuxuu dhaliyay muran badan. Tusaale ahaan, Mareykanka ayaa ka soo horjeestay 10 go'aano ah oo ka dhan ah Israel, falalka ay ku sameynayaan bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin. Sidoo kale, golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu ka kooban yahay 10 xubnood oo kale, kuwaas oo matala Afrika, Asia, bariga Yurub iyo Latin America, iyo sidoo kale galbeedka Yurub. 10kan xubno ma ahan kuwo joogto ah, waxaana la doortaa 2 sanaba mar si loo hubiyo inuu wadan walba uu helo matalaad golaha amniga ah. Amarada ka soo baxa golahan oo ah kan amniga waxaa fuliya ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo tiradoodu gaarayso 100,000 oo askari. Qaybta saddexaad waa golaha dhaqaalaha iyo bulshada, Economic and Social Council. Golahan ayaa ka shaqeeya horumarinta iyo wanaajinta heerarka nolosha iyo caawinta xuquuqda bini'aadamka. Inta badan waxa ay UN-ka dhab ahaantii qabtaan waxa udub dhaxaadka u ah caawinta dalalka soo koraya. Golahu waxa uu la shaqeeyaa hay'ado gaar ah sida WHO iyo guddiga sare ee qaxootiga si taasi u dhacdo. Qaybta afraad ee hay'adda qaramada midoobay waa waaxda garsoorka, waana maxkamadda cadaaladda caalamiga ah, International Court of Justice (ICJ), halka looga doodo ku xadgudubka sharciga caalamiga ah laguna maxkamadeeyo. Inkastoo ay wadamada awoodda leh ee waaweyn inta badan iska diidaan inay u hoggaansamaan go'aanka ka soo baxa maxkamadda, haddana waa maxkamad ka dhaxaysa caalamka dal walba. Gacanta shanaad ee qaramada midoobay run ahaantii ma shaqeyso xilligan, waana golaha ammaanada. Waxaa la sameeyay 1940kii si looga caawiyo horumarinta dhulalka la gumaysto iyo kuwa xornimada doonka ah inay noqdaan dalal madax bannaan. Golahan waxaa la hakiyay 1994 kadib markii xornimo ay gaarsiisay 70 wadan. Ugu dambeyn, qaybta 6aad ee qaramada midoobay waa xoghaynta. Xoghayntu muhiimad ahaan waa howlaha gudaha iyo howlaha maamulka ee UN-ka, waana qaybta soo ururisa warbixinada iyo xogaha. Sidoo kale shaqadeedu waa isku xirka golayaasha kala duwan ee qaramada midoobay oo uu madax u yahay xogayaha guud ee UN-ka. Hadda waxaa xilkaas haya Antonio Guterres oo ka sii jeeda Portugal.
inkastoo dalalka UN-ka ku jiraan ay leeyihiin iskaashi caalami ah, haddana dalal badan ayaa dhaleeceeya saamaynta weyn ee 5 xubnood ee golaha joogtada ah ee amniga. UN-ka waxay samaysay horumar la yaab leh oo lagula dagaalamayo gaajada, saboolnimada, dhimashada carruurta, daryeelka caafimaadka, daroogada, xuquuqda haweenka iyo waxyaabo kale oo badan. wada xiriirka iyo iskaashiga la'aantii adduunka waqtigan la joogo waxa uu ahaan lahaa mid aad u cakiran, sidaa waxaa qaba dad aad u fara badan.